munaasabadan ayaa ku saabsaneyd seexaya guddoonsiinta deeqda lacageed ee lagu kobcinayo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya aagga tamarta somaliland kaasoo lagu gaadhsiinayo tamarta qoraxda deegaanada fogfog ee miiga somaliland waxaana maalgeliyey mashruucani baanka adduunka iyadoo fulinaysa wasaaradda macdanta iyo tamarta somaliland waxaana mashruucani maamuli doona baanka caalamiga ee dahabshiil iyadoona mashruuca gaadhsiinta aagga tamarta qoraxda ee deegaanada miiga ee somaliland ay ku soo tartameen 26 shirkadood waxa ku guuleystay 12 shirkadood ugu horeyna munaasabadaasi waxa ka hadlay wasiirka macdanta iyo tamarta somaliland cabdilaahi faarax cabdi waxa dawladda somaliland goosatay iyadoo kaashanaysa baanka adduunka baanka dahabshiil international iyo shirkadaha Soomaaliyeed Somaliland ee goostay inay ka shaqeeyaan oo lacagtooda geliyaan in la helo dabka solarka oo off grid-ka oo lagu gaarsiin karo dadka badan ee reer miyiga ee tuulayaasha ku nool oo aanu gaarin dabku maanta ama aan la gaarsiin sababtoo ma iibsan karaan way waxaan ku ogahay wax weeye shirkaduhu sida magaalada u geliyeen nalka ayay miigana u gaarsiin lahaayeen haddii dadka miigu jeebkooda uu karayo inay nalka iibsadaan laakiin ma karayaan miigana ma iibsan karo nalka ay maanta magaalada ka isticmaalo marka xalku waxa weeye in la helo nal jaban oo qoraxda laga dhaliyo oo la gaarsiiyo miiga iyaguna dhankooda halkaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha komishanka tamarta axmed faarax cadare cabdikariin maxamed oo ka socday shirkadda dahabshiil sayid cali oo ku hadlayay afka 12 shirkadood ay ku guuleystay mashruucani iyo agaasimaha waaxda tamarta ee wasaaradda macdanta iyo tamarta somaliland liibaan maxamed waxa muhiim ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala mas'uuliyadda imika idinka saaray inay ka soo baxdaan gaarsiisaan halkii loo baahnaa waxaan markaa anagu idinku daba taagnaanaynaa كمشان هان إن العلماء شروط دي ينام هنا وفصلتين إنه قاري عدي الله بحنا هدو قارينا إنه تهيد اللي هو الشقية هدي أنتوا قاروا هذا ما أنت صبح حال قدامه وحبايا كده لقى لها ما يقارين يقال كبير الدفاعي مركوا مسؤول وذا وحنرجع الله هاي إنه لما انتهى قرنه طلع جدد دهبشيل بانك وكلها مشروعا وحويه إن نمبر 1 caalamka aynu u muujino in ay jiraan hay'ado maaliyadeed iyo shirkado awood u leh inay mashaariicda noocan oo kala maamulaan oo dalka jooga oo aan magaranaysaa mashaariicda noocan oo kala loo baahnayn oo in magaranaysaa shirkado dabadda ah oo kaliya ay maamuli karaan inaan u muujino shirkadaha dalka jira inay maamuli karaan mashaariicda noocan oo kala qodobka labaad ee ujeedadeedu ay ka ahayd waxa weeye in maadaama uu yahay dahabshiil bank international bankiga ugu weyn ama financial institutions ugu weyn dalka inuu ka qayb qaato mashaariicda noocan oo kala ah ee wax weyn ka taraya kaabayaasha nolosha iyo dhaqaalaha maadaama uu yahay mashruuc suuro gelinaya inay dadku leer helaan mashruucan waxaanu rajaynayaa inuu noqdo kii suuro gelin lahaa awoodda qoyska inuu awoodo qoys kasta inuu iibsan karo systemkan oo kaga baxo lacagtii upfront ahayd ee hortaagneed inuu systemkan heli karo taas oo noqon doonta in shirkaduhu qalabkan hadda kadib lagu iibiyo hab hafta oo qof kastoo suurtagelinaysa inuu isticmaalo qof kastoo danyara iyo qof kastoo jooga meelaha fogfog ee aan loo gaarin in maanta oo ay tahay iyada lafteeda inaynu runtii u dabaaldegno mashruuca laga sheekeeyey ee ay hawshan aynu ku jirnaan ay qaybta ka tahay fulintiisa in ay wadaan oo ay gacanta ku hayaan institutionska qaranka oo xagga fulinta markay noqoto wax international companies ama institutions aanay naga caawinin hadday tahay wasaaradda maaliyadda oo maamulka maaliyadda mashruucan gacanta ku haysa oo wax use of country systems la dhama isticmaalka nidaamyada waddanka uu mashruucu ku salaysan yahay hadday tahay wasaaradda tamarta iyo macdanta oo fulintiisa gacanta ku haysa hadday tahay commissionka oo regulate garayntiisa hadhow activity-da iyo hadday tahay shirkadaheennii private-ka oo dahabshiil oo kale ay maaliyaddii gaarka ahayd component-kan ay noo maamulayso dhankooda halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka shaqo gelinta
وزير كحيانك وزارة مالية somaliland. ومالين تاريخية مشروعا ومشروع مهمتي سله مشروعا دينا marka laga eego waa horumar dhinac marka laga eego waa dhaqaale kobcin dhinac marka laga eego waa abni dhinac marka laga eego waa shaqo abuur dhinac marka laga eego waa deegaan badbaadin marka muhiimadda maanta mashruucan leeyahay waxaan u arkaa waxyaalaha ugu muhiimsanaa ee ka shaqeeyay wasaaradda tamarta macdanta iyo kabanyadan awood ilaahay siiyay soo gaaray maanta inay hirgeliyaan mashruucan kuna guuleystaan marka ugu horeysa kabaniyada ku guuleystay waxaan leeyahay hambalyo ismaan axmed ismaan sabti hargeysa